nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa wuxuu uga warramay qiso dadkii hore dhex martay oo ah laba nin ayaa dhulka la iibsaday xadiiska bukhaari ku yaalla markay dhulka la iibsadeen ayaa kii dhulka iibsaday wuxuu ka helay kuus ama kuusad ashuun ama jalxad ayuu helay dahab ku jiro oo dhulka ku jirtay waxaan shareecada islaamiga rakaaza loo yaqaano laakiin qoladani waa shareecadii inaga horraysay bahashii buu soo qaaday dhulkii uu ninka ka iibsaday buu ka qoday dabeetana intuu soo qaaday buu u keenay ninkii wuxuu yidhi war nin yahow jalxaddan dahabkaa baan ka helay dhulkii ee anigu melihiiyo adaa leha qaada buu ku yidhi ninkii kale wuxuu ku yidhi isaguna waanana melihi oo haddaa yaala dee wuxuu yidhi anigu dhulkan kaa iibiyey wixii ku jirana kama warhaynin adaa isule adigu qaado innaga dahab dhalaalaya haddaad aragto dhareerkaaba kaa soo dayi lahaatee adigaa le iyo warkaasi ha dambeeyo sidii aad u yeelan lahayd baad 5 sheekh soo weydiin lahayd sheekh dhul haddaan wax ka helo maanigaa le mise ninkii horaa le waa fatwaad raadinaysaa inaad intaa ku qaadato waayo markaad bidhaantiisa aragtay ayaa hungurigu bilaabmaya ama ninka kani waxaaba la qiima yar dahabku lamacaan lama leh dhalaal lama leh sidaa ogeed buu wuxuu ku leeyahay intuu iska soo qaaday kii meesha sii joogay waar adaan dhulka kaa iibsada adaa leha qaado kiina wuxuu yidhi waar anigu melihiy adigaa leha qaado waxay tagtay markaa maxkamaddii dunida ugu cajaa'ib badnayd maxkamadaha maxaa loo tagaa waxaa loo tagaa laba qof oo wax isku haysto maxay leh mid waliba le anaa leh markaasaa xaakim loo baahdaa laakiin hadday noqoto adigaa le miyaa xaakim loo baahdaa lama baahdo laakiin nimanka kan adaal iyo adaale baa lagu kala bixi waayo dabeetana xaakim baa loo baahda nin baa la isula tego waxaa la yidhi noo garnaq maxaan idinku garnaqaa buu yidhi nin baa wuxuu yidhi dee sheekadii baa la sheegay adaal iyo adaale baanu isku haysanaa waa maxkamad hariiba markaa adaale iyo adaale baa la isku hayaa ninkanna noo garnaq baa la leeyahy wuxuu ku yidhi markaa waaye gartiinnii baa naqay su-aal baan adiga ku weydiiyey alakumaa waladun carruur ma leediin mid baa yidhi inan baan leeyahy kii kalena wuxuu yidhi inan baan leeyahy gartaa waxaan ku naqay buu yidhi haddaba inankaa iyo inantaa inta isu guurisaan xoolahana ku sadaqadeeya iyaga ku bixiya inankaa iyo inantaa inta isu maxaan xadiidka u soo qaadanaya waxaan u soo qaadanaya waxa weeyaan islaamku wuxuu ina farayaa xooluhu inaanay qalbiga inaga degin inay gacanta inaga degaan islaamku inama farayo faramadhnaada oo qaawanaada dhammaantiin laynama farayo laakiin waxaa layna farayaa xooluhu gacantiinna ha ku jiraan ilaahayna ku ateeco wixii laydin yidhi ku bixiya markaad soo xoogsanaysaan xalaal ku keena markaad bixinaysaanna xalaal ku bixiya islaamku wuxuu ina farayaa adduun iyo aakhiro kala soocani ma jirto ee waa shay qura ee adduunkana ku nooshiin intaad joogtaan dad muntajiin ahaada islaamku wuxuu ina farayaa noloshoo dhammi waa cibaado qul ina salaatii wa nusuki wa maxyaaya wa mamaatii lilahi rabbi alcaalamiin laa shariika lah wabidalika umirt wa ana awala almuslimiin idan ikhwatii fi alcaqiida derisku wuxuu ku kooban yahay markaa aragtida suufiyada ma qabnee ah adduunka ka tago masaajidka galaqbes aragtida xoogsiga ah ee ah iska xoogsi taga rag waa raggii xoogsadana ma qabno xataa ma qabno aragtida odhanaysa saacadna soo cibaadaysa saacadna xoogso ee waxaanu qabnaa aragti odhanaysa saacadda xoogsigana cibaado ka dhig saacadda masaajidkana cibaado ka dhig noloshaadoo dhammi cibaado ha noqoto noloshaadoo dhan ilaahay ku ateec subxaana wa tacaala adduunkaagu ha noqdo beertaad aakhiro u fadhanaysay meeshaad rabtay inaad aakhiro u beerato adduunkaagu ha ahaado hadduu yahay mid cilmiya hadduu yahay mid maadiya hadduu yahay mid lacageed sidaa awgeed baa waxaan ku tilmaamaynaa saxaabadan waaweyn aan leeyahay nin waliba milyanuu ka dhintay maxaa milyanadooda u maqli weydeen waxaa u maqli weydeen taariikhdooda milyankan waxa lagu faaniyo waxa buuran ka ahayd waxa lagu faanaa waxay ahayd in ilaahay la adeeco waxaa laga yaabaa intiina haddaan idi weydiiyo zubayr milyaneer maaha qof garanaya inaanu jirin laakiin marka la idhaha casharatulmubashiriin ma ku jiray ha sacd ibn abi waqaas milyaneer maaha qof garanaya ma jiro laakiin haddaan idhaha casharatulmubashiriin ma ku jiray waa la garanaya cabdiraxmaan ibn af cuthmaan ragga kan inay casharatulmubashiriin ku jireen baa macno samaynaysa inay lacag haysteen macno samayn mayso koodii faqiirka ha iyo koodii lacagta haystay
waxay ku kala mudnaayeen baa ina akramakum cinda allaahi atqaakum sida daraaddeed adduun waa la hayee adduunkaan qiimaha ahayn ee aakhiradaa qiimaha ahayd iyo wuxuu aakhire ka gooyo marka waxaan idin leeyahay adduun haydin soo galo laakiin yuu noqonin adduunku mawaasiinta oo iyo intaynu sheegnaa ina noqon wallahi ninka heber waa nin baacbishtaro weyn dabeetana waa laysu soo taagaya dee mar dumaal qabeeyey kanina waa midaan waxba haysanin oo laysu soo taagi maayo miqyaaskaas wuu qaldan yihi miqyaasku waxa weeyaan kii ilaahay adeecun baynu isu soo taagaynaa hadduu xoola haysto oo ilaahay adeecana fa ahlan wasahlan waa nin mu'mino fiican hadduu faqiir iyo ilaahay adeeco waxay leenahay ahlan wasahlan waa mu'min fiican mawaasiintu yay qaldamin hadihi waaxida mawaasiintu yay qaldamin adduunkuna ha noqdo طariiq aakhire lagu gaadho wallahu aclamu billahi tawfiiq wasalaamu calaykum